الله وبركاته سو هذا من كوليج. أهلا وسهلا. سو هذا سؤال مهم أينو كجوابنا سيدي حنو برن لهين سيدي أيانو برن كرا لوقت وان برتي لوقتا waxaan u fahmi waayaa dadka u dhashay waa su'aalo la isweydiin inta badan runtii luqadaha waxa loo qaybiyaa labo Englishka waxa loo qaybiyaa labo Standard English iyo Spoken English. Standard English ku waa kan iskuulada lagu barto iyo jaamacadaha. Spoken English na waa Englishka ay ku hadlaan dadka u dhashay taasi ayaana keentay inuu qofku fahmi waayo. Arabigana waxa loo qaybiyaa fusxa iyo caamiya. Fusxa waa kan aynu dhigano Soomaalidu u taqaano fasiixa runtii kelmadaasi waa kelmad ligooye ah sababtoo ah qofkii wuxuu rabay inuu Carabi barto ku hadlo kula hadla Arabta masxaabtiisa kula sheekaysto laakiin nasiib darro ma aha kan lagu hadlo caamiya ayaa ah kan ay Arabtu ku hadasho. qodobada muhiimka ah marka luqad la baranayo lambarka ereyada waana barataa ereyadii iyo dhawaaqoodii qorista waana barataa aqrinta waana taqaanad aqrin kartaa ama casharkii lagu diray waana lagu soo diray waana akhridaa naxwaha isna waa muhiim naxwa la'aantiina luqada baratay laakiin naxwaheegii ma baran taasi waxay ka dhigan tahay adoo gaari soo iibsaday dabadeedna gaarigii aan baranin sidii loo wadaayay kolba gidaar ka soo goynaya ama waana darawal raasataa darawalkii aad raasanaysaa macnaheedu wuxuu ka dhigan yahay turjubaan baad raasatay sababtoo naxwuhu waa kan aad isticmaalayso markaad hadlayso sidii loo isticmaalayay ereyadii la isugu xidhayay ku fududaynaya inaad jawaab celiso inaad fahanto qofka wuxuu ka hadlayo ma waqti joogu ka hadlaya ma waqti soo socdo ka hadlaya ma waa inaad kala fahantaa ereyadii si fiican una jajabinaynin haddii kale soo waxaad noqonaysaa qof si Soomaali ugu hadlaya. naxwaha ayaa kala laba ah naxwaha mid waa kan fusxa kan fusxa ma shaqeeyo waa burinayaa naxwaha kale caamiya haddii aad baratay fusxa naxwaheega runtii ma shaqeynayo caamiya waa sababta aad keenaysa inaad qofkii fahmi weydo oo ay meelo badan ay ku kala duwan yihiin baa jira xataa ereyada meelo badan baa jira ay ku kala duwan yihiin dhawaqii meelo badan ay ku kala duwan yihiin baa jira markaa qofku waa inuu bilaabaa luqadda waana qaataa koorso caamiya ah haddii aad rabto inaad luqadda carabiga ku hadasho. dhegaysiguna waa muhiim waxaad ku baranaysaa sidii loogu dhawaaqayay ereyada sidii la isugu xidhayay jumladaha jumlado badan oo aanad ku baranin maxaa idhahdayay iskuulka ama maxaa idhahda college-ka ayaad ku baranaysaa. sidoo kale musalsalada daawashadoodu aad bay u fiican yihiin waayo musalsalku wuxuu ka hadlayaa qiso taxane ah waxaanaad ku baranaysaa wixii kasta oo looga baahnaa luqadda sidii loogu dhawaaqayay hadday tahay. haddaad u baahan tahay koorsooyinkan fadlan nagala soo xidhiidh lambaradan hoos ku qoran iyo baraha bulshada ama ku leenahay fadlan nagala soo xidhiidh WhatsApp Instagram Telegram iyo Twitter.
TikTok, YouTube,